marxaladda dalka Mareykanka ee COVID-19 ayaa maraysa meel adag oo aan la dhayalsan karin. Dunida iyo dalalka ay ka kooban tahay ayaa la daala dhacaya dhibaatada cudurka faafa ee coronavirus ee loo yaqaan COVID-19. Cudurka caabuqa faafa ee COVID-19 ayaa ku dhacay 2.3 milyan oo qof, sidoo kalena waxa uu dilay dad ay tiradoodu dhaaftay 158,000 dunida oo dhan. Waa sida ay jaamacadda Hopkins diiwaan gelisay. dadka la xaqiijiyay cudurkani ku dhacay dalka Mareykanka ayaa waxa ay maraysaa in ka badan 739,000 oo qof, iyadoo saacadda ka dambaysa ay tiradani sii kordhayso. gobolka New York oo ah goobta uu cudurkani ku raftay ayaa dhimashadu waxa ay gaartay 17,627 qof. marka laga soo tago dadka u dhintay cudurkan COVID-19, waxa sidoo kale cudurkani saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii iyo nolol maalmeedkii dadka iyo dalka Mareykanka. dalka Mareykanka oo ah dhaqaalaha ugu horeeya adduunka ayaa waxa albaabada loo xiray dhammaan ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii nolol maalmeedka gebi ahaanba. in ka badan 22 milyan oo qof ayaa shaqo la'aan noqday oo buuxiyay caymiska gargaarka asaasiga ah. gobolada ay degan yihiin dadka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa uu saameeyay cudurkan, waxaana toddobaadkan cudurkan u dhintay 3 qof oo Soomaali ah, waxayna ku dhinteen gobolada Washington iyo Minnesota. dhanka kale Soomaalida gobolka Nebraska ayaa baaritaan la sameeyay, waxaa laga helay hal maalin 30 qof oo Soomaali ah, waxaana sidoo kale jira dad Soomaali ah oo gobolada Washington iyo Minnesota cudurkan isbitaal ugu jira. madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Trump ayaa shalay boggiisa Twitterka waxa uu soo dhigay in la xoreeyo 3 gobol oo ay ka mid tahay gobolka Soomaalidu ugu badan tahay ee Minnesota. madaxweyne Trump ayaa aad ugu ololeynaya in dib loo furo dalka iyo dhaqaalaha dadka lagana dulqaado xanibaadda guri-joogga. haddaba waxaa jira khilaaf weyn oo u dhexeeya guddoomiyaasha gobolada iyo madaxweyne Trump, kuwaas oo kale ah Virginia, Michigan iyo Minnesota. guddoomiyaasha ayaa raadinaya qaabab ay dib ugu bilaabaan dhaqaalahooda, iyagoo waliba dhiiran xakameynayana saameynta cudurka faafa ee coronavirus. balse madaxweyne Trump ayaa isagu raba in degdeg loo furo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Trump iyo aqalka cad ayaa soo saaray qoraal ay ugu magacdareen mar kale iyo furitaanka Mareykanka, oo qorshaha uu rabo madaxweyne Trump ee ku fogan in dalka dib loo furo. waxaa sidoo kale gobollo badan oo ay Minnesota ka mid tahay ka dhacay dibadbaxyo lagu codsanaya in dalka dib loo furo oo xanibaadda guri-joogga dadka laga qaado. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.